dabadeetana waxa uu ka hortegay oo uu dhabaha diyuuradaha uu kaga hortegay si uu ugu soo dhaweeyo madaxweynaha waddanka masaarida sayid maxamed xusni mubaarak jaale siyaad oo ay weheliyaan labada madaxweyne ku-xigeen jaale samatar iyo jaale kulmiye jaale axmed suleymaan cabdulla xubin ka ah guddiga siyaasadda ee golaha dhexe xisbiga hantuudaha soomaaliyeed xildhibaanada golaha dhexe iyo golaha shacbiga waa jaale siyaad u dhaweynaya aanay isqaabilayaan madaxweynaha waddanka masaarida president maxamed xusni mubaarak markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha waxaana halkaasi ubax laba gabdhood oo ka kala tirsan ubaxa kacaanka oktoobar ee soomaaliyeed iyo ubaxa masaarida waxaana halkaasi ay labada gabdhood ay ka kala jeediyeen ereyo isugu jira carabi iyo soomaali oo ah soo dhaweyn ah waxayna ubaxa ay u kala geliyeen qoorta labada madaxweyne jaale siyaad iyo jaale xusni mubaarak kadamba waxa ay u soo dhaqaaqeen xagga gegida dhinaceeda laga baxo ayaa ay u soo dhaqaaqeen labada madaxweyne jaale siyaad iyo jaale mubaarak iyadoo oo ay barbar socdaan madaxweyne ku-xigeenka koowaad madaxweyne ku-xigeenka labaad jaale axmed suleymaan cabdulla oo ka mid ah guddiga siyaasadda xildhibaanada golaha dhexe iyo golaha shacbiga oo iyaguna diyaar ku ahaa soo dhoweynta madaxweynaha waddanka masaarida sayid maxamed xusni mubaarak ubaxa kacaanka oktoobar ayaa waxa ay lulayeen caalamada labada dal ee masar iyo soomaaliya iyaga oo si weyn u soo dhaweynayay oo ka qayb qaadanayay madaxweyne xusni mubaarak kadamba labada madaxweyne ay ka qaateen salaan sharaf cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya oo diyaar ku ahaa iyagu gegida dayuuradaha ee magaalada muqdisho jaale siyaad iyo jaale xusni mubaarak oo ka qaadanaya ciidamada qalabka sida ee diyaarka ku ahaa gegida dayuuradaha ee magaalada muqdisho salaan sharafkii iyagoo halkaasi kooxda muusikada tunta ee ciidamada qalabka sidaana ay ka tumeen muusikada astaanta u ah labada dal ee soomaaliya iyo masar waxaana halkaasi ay ciidamadaasi ay labisnaayeen qalab aad iyo aad u qurux badan iyagoo halkaasina ku guddoonsiinayay salaantaasi sharafta ah ee lagu qadarinayo madaxweynaha waddanka masaarida maxamed xusni mubaarak ee booqashada ku yimi dalkeena waxaana halkaasi dabadeetana ay ka garaaceen labada muusig ee astaanta u ah soomaaliya labada dal ee soomaaliya iyo masar iyo guud ahaanba xaaladaha adduunka gaar ahaana geeska afrika waxaana uu gaar ahaan halkaasi uu ku guddoonsiiyey madaxweyne xusni mubaarak bilada ugu qiima badan dalkan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya oo ah bilada xidigta shangeesleyda soomaaliyeed waana imanka madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya jaale maxamed siyaad barre oo madaxweynaha waddanka masaarida sayid maxamed xusni mubaarak guddoonsiinaya bilad sharaftaasi lagu maamuusayo madaxweynaha waddanka masaarida iyada oo aynu ognahay cilaaqaadka ka dhexeeya labadeena dal ee masar iyo soomaaliya oo qarniyaal soo jiray madaxweynaha waddanka masaarida maxamed mubaarak waxa isaguna halkaasi uu ka jeediyey khudbad taariikhi ah wuxuuna ku bilaabay فخامة الأخ الرئيس محمد سياد بري أيها الإخوة الأعزاء أرجو أن تسمحوا لي أن أعبر أولا عن خالص التقدير والامتنان بالحفاوة البالغة التي صادفناها منذ وصولنا إلى بكم الشقيقة التي تربطنا بها أوثق الروابط التاريخية والحضارية والروحية وتجمعنا معها وحدة المصلحة والمصير. لقد أدرك آباؤنا الأولون منذ آلاف السنين تلك الرابطة الأزلية القائمة بين الشعبين فمدوا جسور